يلا مكان على الباب ولا كيف؟ afar iyo labaatankii saac oo la soo dhaafay oo aan hadda joogno magaalada roob baahayay waxa weeye alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh waa ilaahay raxmadu keenay waa nimco ilaahay uu ummaddiisa ku minaystay iyadoo aysan waxyeelana fi jirin sida guddoomiyuhuba sheegay waxaan rajaynayaa inuu dad badan guryahoodii ka barakiciyey oo guryaha ugu galay gurya uu dumiyey way jiraan tirakoobkooda rasmiya inkastoo aan hadda la soo koobi karin oo weli xilli hore ay tahay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha sida uu guddoomiyuhu sheegay ganacsatada iyo dadka wax haystaa inay dadkaas ay dhibiiska iyo cid kastoo barakacdayba inay gacan ka geystaan dawladduna gacan bay ka geysan doontaa haddii alla idmo siduu sheegay maayirku gobolka iyo degmada iyo dhammaan laakiin intaa waxaan faraynaa alxamdulilah xalay markay ahayd 12 iyo bar meelahaas 6 iyo barkii ayaan joojinay gaadiidka isu soconaya ku kala gooshaya gobolada si aysan khasaaro intaa ka badan u dhicin ilaa xalana wali waxniban yihiin haddaan isweydiin doonaa gobolka iyo degmada sida aan ka yeeli lahayn guddiga amniga laakiin waxaan u sheegaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin xaaladdu waa fiican tahay boqolkiiba boqol weeye dadka ay dhibiiskaabaa ugu daran oo aad u qoyey oo roobku uu guryahoodii ka barakciyey iyo dadka magaalada qaybteed inuu dad badan iyaguna ay hadda sida meeshaan taagannahay oo kale dad badan ay bannaanka joogaan biyuhuna xanibeen laakiin waxaan uga degaynaa shirkadaha waaweyn iyo dadka guryaha waaweyn dhisanaya inay biyaha meel u furaan oo aysan dadka ku xanimin oo jidadka ka goyn waxaa laga rabaa dawladda hoosena inay tallaabo kasta ka qaado ciddii iyadu xirta oo wadaadda geysa annaga ciidankana diyaar baan u nahay meeshay sheegaan iyo ciddii khalad ka gasha in roobabku sii bataan baa suuragal ah inay sii socdaan baa laga yaabaa midda kale waxaan leeyahay ciidamada dhammaantood heegan bay ku jiraan cid kastana waxaa la rabaa si degdega iyo gaadiid waaweynna waa u diyaarinay saacadda laga bilaabo dadku waa jilceen waxaa suuragal inay ka sii badato roobku inaan u diyaarinay gaadiid iyo ciidan waqtina aan sii doonno inaan dadka waxa weeye gurmad kale u fudino haddii roobku sii socdo dadkana waxaan leeyahay meel kastoo toga meel kastoo jeexa nin kastoo jooga inuu ka diyaar garoobo sababtaa roobku waa sii socon karaan raxmad ilaahay keenay weeye aad iyo aad u mahadsantihiin